isagoo meyd jamaaca ama u galmoonayo manidiina ee ka soo baxday manidiina ama biyihii ay ka yimaadeen ayaa uu ku riyooday waxau leeyahay qof tilmaan production waa tolkaaga ay ku tolno muuqaalka la garayso subscribe saaro dhinaalka balbalaalkan furo si aad ula socoto production بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أكرم خلق الله سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم أجمعين وبعد وبرنامج كيني فسر كرويوينكا وادكلا سعوتين جنالكا تولمون برودكشن برنامج كينا مانتو حنكسو قاندونا إن شاء الله نكي كريوض أما قفي كريوض إساقو قرسنايو هويني دماتي هويني أما سنان دماتي oo mar hore geeriyootay isagoo guursanayo qofkii kuryoodo ruwayadaas fasal caaki ayay qaadanaysaa iyo wixii hoos imaanaya insha allahu tacaala ayaanu dhigi doonaa haddii alla idmo meydka oo la guursado waa meydkii ku dhintay daacada ilaahay ku geeriyooday waxay dil u tahay in meydkaas uu ku sugan yahay nolol xasilan uun wanaagsan yahay qabrigana loogu nimceeyey meydka ayay tusinaysaa oo saas inuu yahay ayaa la arkayaa qosalka meydkii oo qoslaya haddii lagu riyoodo iyo isagoo faraxsan waxay bishaaro u tahay dadka guriga degan ama awlaaddii ama awlaaddoodii ayay tusinaysaa waxaa lu leeyahay haddii oo arko waalidkii isagoo guursanayo meyd waalidkii waa aabbihii gurigee haddii uu ku riyoodo ama u arko isagoo meyd guursanayo qof guursanayo waxay dul u tahay in wiilashiisa mid ka mid oo u guuri doono inuu wiilashiisa mid ka mid ah u guuri doono ama ilmaha uu awoowaha u yahay inuu u guuri doono ayay tusinaysaa taas maasha allah qofkii arkaa oo ku riyooda isagoo meyd guursanayo waxay dil u tahay qofkaas meydkaas inuu cinaad ilaahay uu ku sugan yahay qofkii arkaa isagoo jamaacayo qof uu garanayo oo dhintay wuxuu arkay isagoo u galmoonayo meyd ama guursanayo meydkaasna waa qof uu garanayo ayuu yahay hadduu taas uu ku riyoodo qofka wuxuu helayaa arrin uu ka qustay ayaa u xasilayo oo uu helayaa hase haatee qofkii arko isagoo meyd jamaacayo haddii uu ku riyoodo isagoo meyd jamaacayo ama u galmoonayo manidiina ee ka soo baxday manidiina ama biyihii ay ka yimaadeen ayaa uu ku riyooday waxau leeyahay qofka waxa dheehi doono uuna gara doonaa rajul oo daalim ah ama munaafiq ah ayaa dheehi doono maalkiisana uu ka qaada doonaa maalkiisana uu ka qaada doonaa sidaas ayaa lagu leeyahay qof daalim ah ayaa maalka ka qaada doonaa lagu leeyahay qofkii arkaa oo ku riyooda isagoo guursanayo haweeney dhimatay isagoo guursanayo lagu xirayo ayuu arkay uuna u galay waxaa loo jeeda uu u galmooday ayaa laga wadaaye qofkaas wuxuu gaarayaa arin ayuu gaarayaa muraadkiisuu helayaa maasha allah weliba inta la eg tahay haweeneyda dhimatay quruxdeeda inta qadarkii la eg tahay ayuu amarkiisuna helayaa qofka ku riyooday ruwadaas haddii uu ninku arko isagoo guursanayo haweeney dhimatay isagoo guursanayo ayaa ku riyooday wuxuun arkay sidii noosha iyadoo nooloo kale marka uu guursanayo waxaa u maleeyaa haweeney nool ayuu u maleeyaa inay nooshahay ayaa u maleeyaa gurigeeda ayuu galay soo ugu noolaado mana taaban tafsiirkaas waxay tusinaysaa lu leeyahay in raa'iga qofka ku riyooda ru'yaase uu dhimanayo inuu geeriyona ay tusinaysaa oo maxaa lagu yidhi hadduu arko ninka asagoo haweeney oo meyd ah guursanayo sida iyadoo noolna uu arko inuu noosha oo kale ayuu u arkay gurigeedii ayuu galay soo ugu noolaado mana taaban oo dhiman asaga ila gurigeeda xaggee waaye oon qabriga meesha deganta ay guriga leedahay haddii laakiin u arko inuu soo qaatay gabadhii oo soo watay waa gabadhii meydkaheede isagoo soo watay oo gurigiisa keensaday hadduu arko markuu guursaday kadib qofkaas wuxuu samayn doonaa acmaal uu ka shalaayo tana roon acmaal oo samayn ka shalaayo oo iska fiiri karaaye waa digniin ayay tusinaysaa taxadirna marka loo baahan yahay taxdiir digtooni ayaa loo baahan yahay markaas laakiin gurigiisa hadduu keensado waa hadduu gurigeeda la aadana gurigeeda ugu noolaadana saa dhimanayo hadduu intuu soo wato meydkii gurigiisa keensado
saas uu ku guursadana acmaal wuxuu sameyn doona qofka qaban doonaa uu ka shalaynayo. haye haddii uu jamaaco marka meydkii jamaacay in jaamac ahaa hadduu jamaaco uu galmado acmaashiisa uu ka shalay doono qofkaas uu maalkiisa khasaarayo maalkiisii ayaa khasaarayo dumaan lahaa tiraanyo iyo murugana qofkaas way soo asiibeysaa murugana way soo asiibeysaa ayaa lagu leeyahay. hadduu arko biyaheedii markuu jamaacay ayuu biyaheedii ama biyo miniina kasoo baxay ayuu arkay qofkan waxaa lu leeyahay qofka shanigiisu uu wanaagsanaan doonaa bacda nadam shalayto kadib ma arrinkiisu uu wanaagsanaan doonaa shanigiisu wayaxsulu cala alkhayri biqadri ilmaa aladi asaaba bacda jamaacihaa biyihii ka yimid marka jamaaca kadib intay la egyihiin oo khayr ah ayuu qofkan heli doonaa markuu shalay kadib ama marka acmaal kala qabtay ilaahay khayr ugu bedelayaa booskaas biidni illaah. hadduu arko waa ninkii jaariye meyta ah soo guursanayo gabar dhimatay jaariyad ah oo dhimatay isagoo guursanayo ayuu arkay wuxuu qaban doonaa camal shaqayn doonaa so oo risqi uu u gaaro maciishadiisa usoo helo ayuu u shaqaysan doonaa qofkaas uu xamaalo doonaa ayaa loola jeedaa mana oo risqiisi iyo maciishadiisii ayuu raadsan doonaa uu shaqaysan doonaa leeyahay. haddii haweeneyda ay ku riyooto iyadoo nin oo guursaday ku riyootay uuna la galay oo gurigeedii ayuu ugu yimid gurigeedii ayuu ugu soo galay taas waxaa leeyahay waa nuqsaan fii maalihaa maalkeeda ayuu nuqsaan ku yahay maalkia ka nuqsaamayo taladeediina way kala tegeysaa xaaladeedi way isbedeleysaa ayuu leeyahay waa inka manaa ninka u hado madyaha waa fahan gabadh arkays waxaa aragtay nin dhintay nin geeriyooday oo guursanayo oo gurigeeda ugu soo galay ayay aragtay marka waxaa leeyahay maalkeedii ayaa khasaarayo arrinkeedii uu kala tegayaa xaaladeedina way isbedeleysaa. wain kaana dakhala biha almeyt fii beyti majhuul haddii guri aan la garanayn uu la galana oo markaa guursaday tuu gacanta qabsaday guri isa garanin iyadu ama aan la aqoonba uu geystana fa inaha tamuutu idaa dhimanayso ida ayaa geeriyoonaysa ayaa lagu leeyahay. waa cajiib marka ruyooyinka waa ruyo cajiib ah. shaksigii arko qofka ku riyoodo meyd oo qoslayo xaguu qoslaa meydka marka xafladdii arooska oo qofkan u dhigtay waa ninkaani markuu xaflad samaystay dadkii isu yimaadeen ayuu meydka ayuu arkay meyd qosla ayuu arkay oo maroo dhintay qof yaqaano ama is aqoone lakiin inuu dhinto og yahay oo qosla faraxsan ayuu arkay oo aad u faraxsan oo kasoo qaabgalay arooskii waxaa leeyahay rooyadaas waxay ishaareysaa khayr iyo bishaaro oo dadka meydkaas ugu bishaareynayo ayay tusinaysaa insha allahu taala ninkaasna mana khayr fara badan ayuu gaarayaa waa bishaaro ayaa lu leeyahay. qofkii ku riyooda oo arko waalidkiis geeriyooday oo guursanayo aabbaha geeriyooday waxaa aragtay oo guursanayo haweeney lagu xirayo ayaad ku riyootay see noqonaysaa bal si fiican u dhegeyso waxaa aragtay waalidkaa geeriyooday oo guursanaya ayaa aragtay ama shaksi wuxuu arkay xafladda waalidkiisa ayuu arkay manaan ku arkay rooyadaas waxaa lagu tusinayaa qofka arkay asaa guursanaya dodoob yahawa qofka rooyadaas ku riyooday oo ku riyooday waalidkiis geeriyooday oo guursanayo ku riyooday hadduu doob yahay isaga guursanayo haddii uusa doob ahaynna marka isaga uu xaas uu leeyahana waxaa guursanayo walaalihii mid kamida guursanayo ama ilmihiisa mid kamida ayaa guursanayo ama walaalihii ilmahooda mid kamida ayaa guursanayo wallahu aclam saasay noqonaysaa. waalidoo guursada maxaa yeelay awlaadu waa qeyb kamid ah waalidkooda marka hadduu arko waalidkiisa guursanayo hadduu doob yahay isaga guursanaya saasa lagu fasirayaa haddii isaga oo guursadana walaalihiisa guursanaya ama walaalihiis ilmay dhaleen ayaa guursanaya ilaa kulli waalidkee ku abtirsanayaan gelayaane maasha allah. qofkii arko ama rooyada aragtida aabbihii geeriyooday oo faraxsan waxaa aragtay adoo guursanaysid oo xafladda guurka ku jiro waxaa aragtay aabbaha oo faraxsan maasha allah. taas waxay tusinaysaa lu leeyahay waxay ishaaraysaa duco iyo acmaal saalixa ah iyo acmaal wanaagsan oo meydkaas uu helay
aabaha geeriyooda macnaha awlaad barakaysan ahoo intee wardiga us akhriyaan qur-aanka us akhriyaan ay u soo hadeeyaan saas marka uu ku faraxsan yahay oo midkaas acmaal wanaagsan ayaa u karto oo mar walba diiwaanka waxa u gasho acmaal oo khayr ay u gasho maxaa yeele ilmihiisa ayaa duco ula fadhiya usoo duceeyey mar kaste saas marka ku faraxsan yahay waa maasha allah waa ruy aad u wanaagsan miisaanka midka hadduu dhinto miisaankiisa waa go-ay oo isaga camal oo samaystay kuma buuxsan karee wax awlaadda iyo dadkaasi ka dambeey iyo dadka waxbaray iyo jamaacada uu ka tegey waxay u qabtaan ayaa mar walba miisaanka loogu buuxinaya loogu kordhinayaa qofkii arko oo ku riyoodo isagoo guursanayo meyd uu garanayo uu yaqaano ayuu arka isagoo guursanayo wuuna jamaacayaa waxaa isku mida marka nin inuu yahay inuu haweeney yahay saasoo kalena meydkuna inuu nin yahay inuu naag yahay waa isku mide waxaa le rooyadaas waxay shaaraysaa qofka inuu wuxuu dalbayo usoo xasilay uu helay ayaa lagu fasirayaa oo qofka dantii uu lahaa hadafkii uu lahaa muraadkii uu lahaa inuu helayo ayaa lagu fasirayaa haddii shaksi uu arko marka soo midkii jamaacayo oo manidii ay ka soo baxday waa si hore usoo sheegnay markuu jamaaci uu ku jiray waxaa lu leeyahay waxay shaaraysaa in qofkan qof kale ee shirka noqon doonaan oo dhaalima kadib maalkiisa ka dhici doono waa isla tii oo kale ayaa lagu fasirayaa qofkii ninka doo ku riyoodo isagoo guursanayo haweeney dhimatay isagoo guursanayo ayuu ku riyooday wuuna u galay rooyadaas waxay ishaaraysaa khayr iyo risqi oo qofka ku riyooday manaamkan arkay uu gaari doono maasha allah ninka hadduu arko isagoo guursaday haweeney dhimatay ama khaadimad dhimatay hadduu arko rooyadaas waxay ishaaraysaa in qofkan u baahan yahay camal iyo wax ka shaqeeyo si uu maalkiisa u soo helo ayaa lagu sheegayaa haddii gabadha ay aragto iyadoo guursatay aabaheed dhintay guursatay aragtay isagoo qoslayo weliba faraxsan waxaa lu leeyahay waxay tusinaysaa qofkan khayr u imaan doono laakiin dhib kadib ayaa khayr ay helaysaa gabadhaas insha allah ayuu leeyahay waxaa kaloo yaaba inay tusinaysaba inay guursan doonto guur dhow inay guursan doonto shaksi ay jeceshahay aabeedna oo raalli ka yahay guurkaas ayaa lagu fasirayaa saas inaa lagu fasiraya maasha allah marka ciwaanka aad u baaxad weyn oo ku saabsanaa qofka hadduu ku riyoodo isagoo guursanaya haweeney geeriyootay waa mawduuc haddi xasaasi ah oo su-aalo badan ay ku qotomeen ciwaankaas halkaas ayaan kusoo ilaalinaynaa marka rooyada saaad u aragtid inta badan ma noqotee sida fasirka lagu fasiro ama waxyaabo ama macaani kale ayay xambaarsan tahay halkaas ayaan kusoo ilaalinaynaa ciwaankeenii oo maanta ku saabsanaa qofka ku riyoodo isagoo ama arko dad geeriyoodo isagoo guursanayo billahi towfiiq wasalaamu ullahi calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu